waxaan rabaa inaan kelmad ka iraado arrimaha taagan ee dalka oo runtii in badan oo idinka kamid ah waxaad la socotaan habeen hore waxa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dawladda federaalka iyo qaybo kamid ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda waxaan rabaa halka koow inaan ka sheego Puntland qayb kama ahayn waxa ka soo baxayna ma khusayso sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsanay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dawladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo dabcan dalkan waa dal jilicsan waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo waraysi uu bixiyay safiirka Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya ee hadda runtii la bedelay oo ka hadlayay maruu ka hadlayay golaha wada tashiga iyo in arrimaha taagan ee Soomaaliya laga wada tashado oo uu ugu baaqay Somaliland inay qayb ka ahaato ay timaado annaguna waxaan leenahay haddii la rabo 30 sano xasiloon la'aanta jirta ay tahay waxaan ugu baaqayaa Soomaalida oo wada jirta inay meel isugu timaado Somaliland ku jirto oo si dhaba loo wada hadlo oo laga wada hadlo maxaa dalkan dan u ah inta la kala maqan yahay wixii la soo saaro waa waxaan miro dhalahayn mowqifka Puntland horaan u cadeynay dastuurkeeda ku dhigan tahay waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira oo heshiis ah oo dimuqraadi ah oo federaal ku salaysan arrinta ku saabsan qaab dhismeedka dawladda ee hadda laga hadlay waa arrin khatar ah oo runtii cidii ku dhaqaaqday ee gaf ku ahayd maxaa yeelay arrimaha dastuurka u ah qodobada aasaasiga ah waa marka dastuurka la dhisayo dadka waxa ay ku wada heshiyaan oo saldhigga u ah qaabka dawladda Soomaaliya ka aanayso nidaamka awood qaybsiga waa muhiim buu u yahay bulsho kasta oo meel degan bulshadan 60 sano ay xor ka ahayd waxaa jiray kalsooni darro ama faham darro habka dawladda Soomaaliya loo qaybinayo awoodaheeda ama awoodda dawladda sida loogu dhaqmaayo Puntland waxay ka digaysaa wax kasta oo aysan talageliyo buuxda laga gelin dadka Soomaaliyeed oo heshiis madal ah oo weyn aan ugu gaarin nidaamka parliamentary ah ee prime ministerka ah shirarkii dib u heshiisiineed ee Soomaaliya kii ugu horeeyay ee 19 ka qabsoomay Djibouti ilaa kii u dambeeyay ee ka qabsoomay Embagati iyo Eldoret dadkii Soomaaliyeed ee tirada badnaa isugu yimid ee noocyada kala duwan ah haddii aan lahaayeen odayaal dhaqan haddii aan lahaayeen jabhado dagaalkii sokeeye ka dhashay haddii aan lahaayeen dheergarad iyo aqoonyahan mar walba dukumiintiga soo baxay saas ku saleysnaa suuragal ma aha habeen madow dhowr qof inay bedesho wax suuragal ma aha ma dhaheeno waa aayad quraan oo munazzal ah laakiin wixii lagu heshiiyo المسلمون على شروطهم الإسلام قاعد يدنا كلا الله يبغى وحي اللي جوه الشيء هي شرط مركل اللي بدله وإلا جوده هلا حدنا سبب لو بدله من موقت هي ففعلها مدحوينه تاني مركو حلك يبدو كم مغنيس هبكو ودق ماي أما هبكو ودق ماي حفيز كان رنتي وحقيب سجا ضد جارع أوليه كنت كرفال بدن بكوسمي awoodihiisii buu hoosgeeyay xafiiskiisa haddana si bareer ah ayuu wuxuu u yiri ma jiri doono marka waxaan leeyahay awooddaas madaxweynaha hadda la doortay dastuurkaana lagu doortay wuuna ku dhaartay waxaan ka rajaynaynaa inuu kan ku dhaqmo oo uusan ku xadgudbin haddii wax laga bedelayo dastuurka
طبعا قيبة اللي بدل كري قيبة اللي بدل كريم باجرو قيبه حتى كل اللي بدلها برلمان كل بدلها وضوء بروسيجر لو مروا ليه قان يفرد قان ماله دستوري أما قانونية قولها هذا تشيء قرنك سيدا دستور كويا لو حوي سنة كمر أما الله أمر إن يشرع لو أرمها جودة دلك إسكوريستان لكن ماله ما عرفت أود قانونية لكن وحليه هو سياسيين وذا تشوي سبعين كنا وحي أي سلقرتان هيئتها الدولة إني مريم وين سيدا السعد ده شركة قدام بي يعني عن كائمة وحساسه كلا الله صوب بندقي أوديه الدستور وإنتي اللي بدلي للربعنا عنا وانسحنا صورة قلنا معه أودنا أمليه وحجرتا برلمان ولبا آن لبا أقل ولبا لغما كافتو من بربركي دشي درتين اللي يراهدو أقل كهوسة كلية أود له أقل كهوسة وحي أو شرعية أقل كسروا إنه رتفق سنة مركز الشرعية هدو أقل كسرديدو دبا لو علن أقل كهوسة marka waxaas waxa loo adkeynayay inaysan noqonin wax qof iyo labo sidoo doono ka yeelo marka waxaan aad u rajaynaynaa arrimahaas in si mug leh looga fiirsado Soomaaliya sida hadda ku socoto waxaad moodaa inay runta ay u baahan tahay dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah oo aan ahayn sida wax ku socdaan awoodaha qaanuuniga ee hadda dawladda dhexe ay leedahayna runtii wadadii way ka leexatay Puntlandna way cadaysay mowqifkeeda ah iyadoo raacaysa dastuurkeeda iyo kan dawladda federaalkaba inay si gaar ah u dhaqmayso inta laga helayo miirqab iyo wax heshiis lagu yahay arrintaas ay Puntland saldhigeedu u yahay waxaan rabnaa intaas Soomaaliyeed inaan ogeysiino caalamkan inaan ogeysiino maalmaha soo socdana guddigii ay dawladda Puntland ay u saartay arrimahaas ayaa insha Allah fariisan doona la wadaagi doona bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan doonaynaa insha Allah in laga wada qayb gelin doono dhammaan dadka reer Puntland masiirkooda iyo mustaqbalkooda haddii aan lahayd axsaabta siyaasiga ay hadda dhalatay iyo haddii aan lahayd dheer garadka iyo aqoon-yahanka kale iyo haddii aan lahayd dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan maxaa yeelay waxa masiirka ah wuxuu u baahan yahay in fagaarayaal la keeno oo laga wada hadlo arrintaas waa arrin aanan anaguna ku degdegaynin cid kalena aysan ku degdegi karin insha Allah taala Puntland mar walba waxay u taagan tahay midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed waxay mar walba ilaalinaysaa isu soo dhawaanshaha bulshada Soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haynaysaa khaladaadka dad gaar ay ka dhici kara in ay saxdo iyadoon xumaan ula jeedin waxaan u rajaynayaa marka ay tahay Soomaalinimadana qaybteena ka qaadanayna markay wax qaybsiga tahay iyo power sharing-kana hadda Puntland qaybta ay ka tirsan tahay inay mar walba difaacda diyaar bay u tahay qaybta ay ka tirsan tahay ilaaliso xafiisyada markaas sida gaarka ugu isman aysan noqonin cid walba say rabto inay ka yeeli karto xafiiska hadda la leeyahay waa la baabi'iyay suuragal ma aha cidaan dadkeeda ahayn iyadoo lagala tashan in la iska baabi'in karo aan ka xumahay kuwa qaybta wax kale ee meesha fadhiyay sida ay u aqbaleen ama ay maaragtay ula qaateen kullay waa la wareysan doonaa markooda iyo meeshooda iyo madashooda waa laga wada hadli doonaa haddii Ilaahay dadka kalena de waxba kama khuseeyaan marka arrintaas waqtigeedaan u deyn doonaa ma raba inaan ka hor dhaco